dibadbaxan oo ahaa mid lagu taageerayo hadalkii dhawaan ka soo baxay madaxweynaha maamulka Galmudug ee ahaa in dalka lagu soo rogay xaalad degdeg ah iyo in shacabku ay ka shaqeeyaan ammaanka ayaa waxa ka qayb galay madaxda ugu sareysa maamulka Galmudug iyo qaybaha bulshada magaalada Gaalkacyo sida culmo-diinka ururada haweenka ardayda iyo dhalinyarada gobolka Mudug waxaana ujeedada ugu weyn banaanbaxan ay ahayd sidii shacabku ay muujin lahaayeen sida ay uga xun yihiin afduubkii loola kacay shaqaalaha ajaanib ah oo shaqeynaya hay'adda DDG banaanbaxa oo ay ka soo qayb galeen kumanaan dad ah ayaa mas'uuliyiintii ka hadashay waxa ay sheegeen sida ay muhiim u tahay xaqiijinta ammaanka madaxweynaha Galmudug Maxamed Axmed Cali oo la hadlayay shacabka halkaas ugu soo baxay ayaa sheegay in wixii xilligan ka dambeeya ay talaabo cad ka qaadi doonaan dadka falalka amni darrada ka geysta magaalada isagoo sheegay in isku dambi yihiin kooxaha falalka amni darrada wada iyo waliba kuwa gacanta siiya oo uu tilmaamay inay jiraan nabadoono iyo dad mas'uuliyiin isku sheegaya oo dadkaasi gacan siiya waxaan u soo istaagnay waxa weeye dambiilayaashii falka dambiga geystay kuwii sii daayay ama ciidan ha noqdaan ama shicib ha noqdaane inaan meel uga soo jeerin tallaabo ka qaadna waaye tan laga bilaabo tallaabaa laga qaadi doonaa waxa la idinkugu yeerayna waa idinka madaxweyne Caalin ayaa sidoo kale soo hadal qaaday hadalhayn bariyihii ugu dambeysay socotay oo ahayd in culmo-diinka Ahlusunna iyo maamulka Galmudug ay heshiis ku galeen iskaashiga ammaanka magaalada Gaalkacyo isagoo sheegay in arrintaasi waxba kama jiraan ay tahay diyaar muutiin maanta laga bilaabo gacan ku dhiigna dambiilayaashii afduubayaalkii waa inaan soo qabanaa kuwii sii daayey ee saraakiisha sheeganayeyna tallaabaan ka qaaday niman sheegtay inay yihiin culimmada sunna waljamaaca oo yidhi ciidan sunna waljamaaca iyo Galmudug ayaa heshiiyey oo magaalada soo geli doona oo qabsan doona oo arrintaasaa jirta ha la ogaado waxba kama jiraan warkaasi war wax ka jiraan maaha si kastaba ahaatee banaanbaxan ayaa ahaa kii ugu weynaa ee lagu taageerayay hadalkii dhawaan ka soo baxay madaxweyne Caalin oo ahaa in xaalad degdeg ah uu ku soo rogay deegaanada Galmudug Roble Maxamed Hon Cable TV Gaalkacyo.